بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي qaaliga ahaa see layahay ma la wacan yahay xaaladaha ka warama maxaa inoo kala dambeeyay soo lama wada wanaagsana waxaan la hadlayaa asxaabtii qaaligeeda hore ila joogtay saaxiibada cusub ee quruxda badan ee hadda igu soo biiray ee waliba iiga yimi walaashay qaali xamdi kalgacal xamdi sharaf kulligii waayo meelaha kale aad iga soo raacdeenba aad iyo aad ayaan idiin soo wada dhaweynayaa kusoo dhawaada qalbi furan gacmo furan insha allah biidmillaahi raxmaan waxaan rajeynayaa khayr inaad igala kulantaan anigana inaan khayr iyo barwaaqo idin kala kulmo insha allah biidmillaah wixii maaragtay wanaagsan ee aad ii haysaan igu soo biiriya haddii ilaahay yiraahdo waan idinka qaadanayaa fikirkiina waan tixgelinayaa wixii maaragtay astiradan waan ku khaldanahay oo maaragtay si khaladaan u dhahayaa ama si khaladaan u sameynayaa ama waxaan khaldo oo kale diyaar baan u ahay inaad isoo saxdaan oo maaragtay ilaan islaamka maaragtay muraayad buu isku yahay islaamku inuu isa saxo weeye inaad isoo saxdaan mar walba diyaar ayaanu ahay wixii fikir cusub ahna maaragtay fikirkiinaana waan idinka qaadanayaa biidmillaahi raxmaan haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaan idiin soo wada dhaweynayaa farxad guul iyo barwaaqo iyo bashbash ayaan idiin rajeynayaa dhammaantiin baanaan idinkala reebeynin meel kastaan joognana ilaahay subxaana watacaala haynagu ammaansado wax dhiba alla inama tuso meel kastaynu daafa caalamka joogno ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed aamiin ya allah insha allah waxaan idinla jeclaystay inaan idinla wadaago cabitaan yar oo dhag ah dhag hadda dhag maasha allah intaanan cabitaanka u gudagelin dadku waxay ku sharaxdaan miisaska iyo meelaha aniga tarmuusadihii labadii falaasadood aan biyaha kulul ku shuban jiray baan ku sharaxday wax ka qurux badan ma jirto halka wana wax dhigdhigo iyo wax ubax iyo waxaas biyahaygaasaan ka jeclaystay inaan ku sharaxdo marka cabitaankaan usoo noqonaya cabitaanka aniga maaragtay alxamdulilah ma soo gado cabitaanka banaanka lagu gado ama meelaha dukaamada waxaan nacaa sonkortaan nacaa iyo waxaan kaloo nacaa maadaama iyagoo xitaa ku dhahayaan cabitaankani waa maaragtay maxay ahayd waa cabitaan sax ah oo biyo lagu sameyn oo sidana ayay haddana maaragtay sonkor kuma jirta ku dhahayaan waa ku jirtaa sonkor waxay ku dhahayaan cabitaan saxa mana noqon karo khasab waxbay ku dardaraan marka waxaan sameeyaa intaan aniga awoodo cabitaanka gurigan ku sameeyaa khudaarta caadiga baana ka sameeyaa markaanan awoodin oo asdhaho maaragtay dee isbuuci matalan oo kale 7 cisho ma sameyn kartidna 3 cisho kamid ah haddaan cabitaan sameeyo xaafadda u sameeyo waa alxamdulilah wax kasta oo nafteena maaragtay wanaagsan ilaahay subxaana watacaala ajar buu inagu siinayaa nafteena u sameyno iyo nafaha kale aan mas-uulka ka nahayba wax kasta oo maaragtay dhiba markaa nafteena ku dhibnana waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala nagula xisaabtamo marka ilaahay ajar ha inaga siiyo wax walba qabsanaynaba ajar aan u niyeysano ilaahayna waxaan uga baryayaa inta maaragtay walaalaheena iyo dalkeena iyo dadkeena ee maaragtay markaas aan awoodina ilaahay subxaana watacaala ha siiyo arsaaqad xalaal oo waasaca marka alaabtan insha allah cabitaankani waxaan isku dayaa inaan maaragtay wiigii 3 jeer sameeyo ama 4 jeer hadba sida aanu awoodo inaan u sameeyo inta kale laakiin waxaan ka dhigaa matalan 75% waxaan ka dhigaa biyaha cad in xaafadda aan cabno cabitaankana laakiin waa markaan aniga sameeyo inta kale ciyaalkana ma siiyo anigana ma siiyo qof kastana waxaan jeclaysan lahaa cabitaanka hadduu awoodo isaga ha samaysto hadduusan awoodina biyaha cad ha cabo biyaha cad baa wax walba ka fiican oo ka caafimaad badan jirkuna uga baahi badan yahay waxa kaloo dhan marka waxaan sameeyaa cabitaankan hadda waxaan ka sameeyey oranjo iyo waxaan ka sameeyey iyo celery iyo kaaroto marka hadda maanta kale markaan sameynayo maalintaan sameynayay maanta codkaa saaraya iyo ismalaha markaan sameeyey waxaan sameeyey maalin jimco ah badanaa waxaan sameeyaa isbuuci sabtidan soo adeegaa marka waxaan sameeyaa wixii khudaar soo hara haddii xitaa celery yahay kaaroto hadda mandariin baa ku dhex jirta xitaa dhowr xabo mandariina ku dhex jirta markaan ciyaalka iskuulkii maalintaa u diyaariyo ayaa waxaan sameeyaa oo wixii khudaarta ah fruudkii aan siin lahaa siiyo baan wixii soo hara intaan maaragtay meesha sinkiga weelka lagu xalo ku guro
oo maaragtay wax yar oo maaragtay hadaan doono khal ah ku shubo half an hour ku daayo badan waxaa dhaha khalka wuxuu ka dhigaa organic buu ka dhigaa baa la dhahaa allahu aclam laakiin ayaan si fiican u dhaqaa kabacdina waan shiidaa markaan shiido cabitaan heer sare ah baan ka dhigaa hadda anaga samar baan ku jirnaa caruurta waxaan isaga geliyaa freezerka dhinaca qabowga waxay u imanayaan mid kasta koobkiisi aan u diyaariyey maasha allah dhalooyin aan ugu talagalay aan ugu shubay mar aan idinla wadaagi doono haddii ilaha yiraahdo waa dhalooyin hadda aragtaan yacni simple ah aad ku qosli doontaan saan ku helay guriga dhexdiisaadna ka samaysanaysaa kuwaasaan ugu shushubaa freezerkaan u geliya isagoo qaboobay markaa u yimaadaan maasha allah waana markaan awoodo markasta maaha markaas salariga aad iyo aad ayuu u fiican yahay lafa xanuunka isaga la fitaminadiisa alxamdulilah nimcadiisa ma la koobi karo kaarootada sidoo kale aad bay u fiican tahay indhaha dadka macaanka qaba aad bay u fiican tahay oranjadana yacni ma qiyaasi karno mana soo koobi karno waxaa laga yaabaa wadankeeni dadka joogaa inay dhahaan waxaasoo oranjo maxaa laga dhigayaa waxaa laga yaabaa intaasoo hadda oranjo meesha ku jirta inay u dhiganto ilaa hadda waxaa laga yaabaa wax aad bay u badan tahay laakiin waxaa laga yaabaa inay u dhiganto afarteeda xabo iyo xabadeeni Soomaaliya inay isu dhigmaan laana waxeen organic bay ahaayeen waxay ahaayeen nimca ilaahay noogu talagalay bay laakiin waxana wax bacrin lagu sameeyay iska yartahay wax tarkeedu haddana alxamdulilah haddii la iimaansado oo maaragtay wax walba wanaag loo niyeysto ilaahayna wanaag inooga dhigaya maasha allah marka waxaan sameeyaa maalinta jimcaha aan ku soo yara noqdo wixii guriga waxaan ka dhameeyaa wixii yaalo oo dhan waan shiidaa badanaa waxay nagu dhacdaa cuntadii waynu iska korkeenaa tii hore taala wax kale kusoo gurnaa way isla bushuqdaa bahalaha caagaga qashinkan buuxinaa subxaanallah israaf baa ku jira meesha dhaqaala burbur baa ku jira yacni waxyaalo badan marka laakiin haddaan maaragtay wixii isku habaysano isku qurxisano israaf meeshii ma imanayo adiga laftirkaaga dhaqaalihii maaragtay ma kaa bahalkeysmayo dee qof waxa maaragtay dhaqaalayste baad noqonaysaa markaas sidaas insha allah khudaarta caruurta ha loo sameeyo fruitska iyo maaragtay vegetableka iyo waxaasoo dhan ilmaha ha loo sameeyo iyo qof kasta aad mas-uul ka tahay hadduu odaygaaga yahay hadduu qof kaloo kuu yimi yahay hadduu qofkii kasta aad mas-uul ka tahay naftaada meel kasta insha allah ciyaalka waxay iga soo dhex galay aad iyo aad baan idinkaga raali gelinayaa marka khudaartii markaan jarjartay habaystay xoogaa wax yaroo biyaa baan ku shiidayaa si maaragtay hadhowto ay igu shaandhaysanto sonkor dhanna ma ku darayo wax sonkor la yiraahdo kuma darayo anigana sonkorta ma jeclina afkayga saaro alxamdulilah ilaahay baa iga madoobeeyey ciyaalkana maasha allah waan baray laana waxa adiga kuu wanaagsan naftaada aad u jeceshahay ilmahaaga odaygaaga qof kasta aad jeceshahay inaad isagana waalidiintaada qof kasta aad jeceshahay inaad bartid waxaad adigu naftaada u jeceshahay sida matalan sonkortaasoo kale sonkorta waa dilaa qofkii awooda ha iska daayo ku dadaalo iska daayo tartiib ha isaga daayo marka dambana ha iska wada daayo aniga aad baan sonkorta u isticmaali jiray haddana alxamdulilah ilaahay bay iga madoobeeyey ilaahay baana mahadda iskale alxamdulilah marka aniga mashiinkaasaan jecla inaan ku shiito kuwa kaloo qashinka iyagu iska tuura ma aamino waxaan sadaa furuudkii oo dhan way kaa wada tuurayaan baan isdhahaa kaasaan jeclahay waa ilaa shadaa ciyaalka uma dhiibo markan waxaan shiidanayo mid yaroo kale aan ku shiitaa canjeela haddaan samaynayo kale marka laakiin kan cabitaanka bes ilmahana ma u ogolay inuu iga taabtaan la-ana waxaweye yacni wax walba waa fara ku hayn weeyaan ilaahayna maaragtay inuu xifdiyo wax kastoo wanaagsanna ilaahay maaragtay dheefteeda allahana siiyo dhibkeedana allah inaga qabto marka cabitaankaasaan jag isku siiyaa ilaahay baa mahadda iskale wax kastaadna ka samaysan kartaa wixii khudaara markaa guriga kusoo hara baad ka samaysan kartaa mararka caadigana wixii de naftaadu jecesho oo dhan baad isku samaynaysaa hadda cabitaankaas waxaa laga yaabaa 3 maalmood ama waxaan ka wadaa 2 maalmood inuu aanu cabno ilaahay maaragtay alxamdulilah hadda already waaba cabnay ilaahay noo calfa nooga maaragtay barakadiisa hana siiyo marka insha allah biidnillaahi raxmaan waxaan jeclaystay intaas inaan idinla wadaago haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana watacaala wax laga faa'iido oo khayr leh in communitygayga iyo dadkayga aan la wadaago ilaahay iga keeno wixii khaladahana ilaahay subxaana watacaala hayga maaragtay cafiyo wax kasta oo aan saxo
وحق إلهي بكاهات الحمد لله وحيا خلدنا ونفتدي من الشيطان الله سبحانه وتعالى هيقع عفيه إذن كان هدان إذن دبي أما واحد بايدين جيستو انتاس عفس باني ويدي سنية أنا قرنتي فرحد يبرواق عردين كلا كل ما آد أياد أمهات سنتين دماتين با فيديوغا intan ayuu ku dhamaanaya hadii ilaahay yiraahdo farxad baan idin rajeynaya dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Guuleysta.